habeen wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka caawa idaacadda kulmiye waxaana ka mid ah ra'iisul wasaare Kheyro guddi wasiirada u saaray inay u gurmadaan dadka ku waxyeeloobay daadadkii ku ragmaday magaalada Qardho madaxweynaha Puntland oo booqday magaalada Qardho ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay taakuleeyaan dadka ku dhibaatoobay biyaha ku soo ragmaday magaaladaas wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay kiisas hor loo ah corona iyo koonfur galbeed oo laga helay kiisaskii ugu horreeyay ah cudurka dilaaga ah COVID-19 beesha caalamka oo soo dhaweysay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta isbeddeldoonka ah madaxda dawladda Soomaaliya oo laga dalbaday inay wax ka qabtaan boob lagu hayo dhul ay leeyihiin dadka ka shaqeeya kaawada iyo madaxweynaha Raashka oo sheegay xilliga bandowga laga qaadayo dalkiisa markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beeraraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeen talaada taariikhda ay ku beegan tahay 28 bisha afaraad Abriil sanadka 2020 intaad maqasheen caawa waxa inoola diyaaraa waryaheena Cabdisataar Xaaji Cali aad baad u mahadsan tahay Yoonis Duraan Cali habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ra'iisul wasaare Kheyro ayaa guddi wasiirada u saaray inay u gurmadaan dadka ku waxyeeloobay daadadkii ku rogmaday magaalada Qardho ee gobolka Bari ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyro ayaa guddi 8 xubnood ah isla markaana gudoomiye u yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye u magacaabay u gurmashada dadka ay saameeyeen daadadkii ku rogmaday magaalada Qardho ee gobolka Bari gudigan ayaa la faray inay si degdeg ah gurmad u gaarsiiyaan dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay daadadkii ku rogmaday maalinimadii shalay magaalada Qardho ee gobolka Bari maadaama dadka qaar ay cidla fadhiyaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ku dhawaaqay gudigan la magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyro wuxuu magacaabay guddi qaran oo u xil saaran inay u gurmadaan ugu horeyn dadkii Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay degmada Qardho daadadkii iyo fatahaadii ka dhacday iyo sidoo kale guddigu inay qiimeeyaan oo ka hortagaan khasaare ka imaan kara daadadka iyo fatahaadaha ka dhalan kara roobka daaya xubnaha guddiga ra'iisul wasaaruhu magacaabay waxaa ka mid ah mudane Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha gudoomiye mudane Maxamed Burci Xamsa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xubin mudane Maxamed Cabdi Xayir wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xubin mudane Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta xubin mudane Foosiya Maxamed Sheekh wasiirka tamarta iyo biyaha xubin sidoo kalena ra'iisul wasaaruhu wuxuu guddiga amray in maadaama roobku ay daayaan oo ay dhici karto in meelo kale oo badan oo dalka ah ay ka dhacdo fatahaad ama daadad dadka Soomaaliyeed waxyeeleeya in ay bulshada Soomaaliyeed iyagoo kaashanaya madaxda maamul goboleedyada uga digaan khasaaraha ay keeni karaan roobka daaya isla markaana ay u gurmadaan cidii ku waxyeelowda wax alla wixii dawladda dhexe u awoodo sida ugu dhaqsaha badan ula gaaraan geesta kale madasha xisbiyada qaran ayaana waxa ay magacaabeen guddi gurmada oo ka shaqeeya musiibadii ka dhacday magaalada Qardho madaxweynaha maamulka Puntland oo booqday magaalada Qardho ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay taakuleeyaan dadka ku dhibaatoobay biyaha ku rogmaday magaaladaas Umar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinta inoo haya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta booqasho ku tagay magaalada Qardho ayaa kormeer ku tagay goobaha ugu daran ee waxyeeladu ay ka soo gaadhay fatahaadii ka dhalatay roobka xilliga guga oo ka da'ay deegaano ka tirsan gobolka Bari madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo socodkiisa ay ku wehelinayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo saraakiisha ciidanka ayaa waxa ay xaalad bini'aadanimo ay gudaha magaalada Qardho ay kula qaybsadeen dadka ay khasaaraha nafeed iyo midda maaliyadeed ay ka soo gaadhay biyaha ku rogmaday magaalada Qardho
madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa inta uu joogay magaalada qardho waxa uu ka qayb galay aas loo sameeyey dadkii ku geeriyooday daadadka ku fatahay magaalada qardho isagoo tacsi u diray ehelada iyo qoysaska dadka geeriyooday. saciid cabdulaahi deni ayaa sidoo kale ku dhex lugeeyey magaalada isagoo kormeer ku tagay goobaha burburka xooggan uu soo gaaray si uu u soo arko sida ay wax u dhaceen, waxaana uu booqday boqolaal qoysas ah oo ku barakacay daadadka ku soo fatahmay magaalada qardho isagoo la kulmay bulshada islamarkaana ka warbixiyey khasaaraha goobta ka jira. hase yeeshee saciid cabdulaahi deni ayaa markii kormeerka uu soo dhammaaday kadib qabtay war murtiyeed uu kaga warbixinayey booqashada uu maanta ku tagay magaalada qardho, waxyaabihii uu soo arkay, isagoo durbadiiba magacaabay guddi ka tirsan xubnihiisa golaha wasiirada kuwaasi oo si degdeg ah gurmad ugu sameeya dadka ay waxyeelada soo gaadha islamarkaana qiimeyn dhaba ku sameeya khasaaraha ka dhashay daadadka magaalada qardho ku soo rogmaday. waxaan sidoo kale halka tacsi u darayaa dhammaan dadkii waxyeelada kale ay soo gaartay oo guryahoodii ku waayey, hantidoodii ay ku burburtay, ganacsigoodii dhaawac uu ku soo gaaray ama gebi ahaanba ay ku waayeen. intaba waxaan uga rajaynaynaa ilaahay idankiis inuu cawad khayr qaba oo uga wanaagsan ilaahay inuu si degdega u siiyo. intaa marka aan ka baxo dhibaatadii dhacday runtii waa dhibaato puntland oo dhan ku dhacday. intii aan soo aragnay ayaa nooga filan khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay, naf iyo maal iyo mood intaba wuu ahaa. dowladda puntland waxay rajaynaynaa in ay kaalinta ay kala gudboon ay qaadan doonto. waxaan bulshadeenna dhibaatada soo gaartay ugu baaqaynaa inay istejiyaan wixii dhacay ay maaragtay ilaahay xaggiisa ay ka ahaatay, ku kalsoonaadaan dowladooda siday u garab taagan tahay. waxaan sidoo kaleeto dadka kale ee reer puntland ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan gurmadka dadkaas waxyeeladu gaartay oo dhammaan gebi ahaan hantidoodii ku burburtay, naftoodii ku waayey, guryahoodii ay ku burbureen. dowladda puntland waxa ay qabatay guddiyo degdeg ah oo isugu jiro guddiyo samata bixinta degdega ah samaynaya. codkaasna waxa uu dambeeyey warkii waryaheena Cumar Maxamed Soomane. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo ah COVID-19 iyadoona deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya laga helay kiiskii ugu horeeyay oo ah coronavirus. Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinta inoo haya. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay maanta kiisas hor loo ah cudurka dilaaga ah ee COVID-19 kaasi oo si weyn dalka ugu fidaya. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abiy Nuur ayaa sheegtay in 24 saac la soo dhaafay cudurkan uu gudaha dalka u soo ritay dad gaaraya 48 qof. sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in cudurkan ay u dhinteen dad gaaraya ilaa 2 qof. kiisaska dadka ay shaacisay wasaaradda caafimaadka inay qabaan xanuunkan ayaa ku kala nool sida sheegtay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya maamulada koonfur galbeed Jubbaland iyo gobolka Banaadir. kiisaska korona ee Soomaaliya ayaa haatan gaaray 528 kiis. xaaladaha cusub ee soo kordhay waxa waaye 48 xaaladood, waxaa lab ah 31, waxaa dhadig ah 17. xaalada soo kordhay goobaha ay kala joogaan waxaa waaye Banaadir oo ah 41, Jubbaland oo ah 3 iyo South West oo ah 4. kiisaskii ugu horeeyay ayaa maanta laga xaqiijiyay koonfur galbeed, taasoo ka dhigan in dhammaan dowlad goboleedyada dalka uu ka jiro cudurkan fayraskan kuna faafay guud ahaan dalka. da'da dadka laga helay waxay u badan yihiin 20 ilaa 39 jir, waxayna ka yihiin 65% dadka laga helay. tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan wadanka waxay gaaraysaa 528. 24 saaca u dambeeyey Allah u naxariistay waxaa dhintay 2 qof. tirada guud ee dhimashada waxay isugu tegaysaa 28 qofood. waxaa ka bogsatay 5 qofood 24 saac ee ugu dambeeyey. tirada guud ee bogsashada waxay gaaraysaa 19. cudurkan ayaa haatan wuxuu si weyn ugu fidayaa guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaana kiisaska dhimashada ee cudurkan ay gaartay dalka oo dhan 28 qof. beesha caalamka ayaa soo dhoweysay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta isbeddeldoonka Jubbaland. saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya waxay soo dhoweynayaan wadahadalka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo hoggaanka
golaha isbeddeldoonka ee jubbaland kaasoo ku dhammaaday heshiis dib u heshiisiin oo la saxiixay 23 abriil. heshiisku waxa uu u taagan yahay tillaabo wax ku ool ah oo lagu xallin karo khilaafaadka ka soo ifbaxay hannaanka doorashada jubbaland ee agosto 2019 kaasoo kala qaybiyey bulshooyinkii daneeyaasha siyaasadeed. natiijooyinka doorashadii lagu muransan yahay ee jubbaland iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka 18 bilood ee lasoo dhaafay waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ay leedahay hannaanka doorashada ee la isku hallayn karo oo ay soomaalidu ku dooran karto hogaamiyaasheeda iyada oo la raacayo dastuurka federaalka iyo dastuurka ee xubinta ka ah dowladda federaalka. wadahowlgalayaashu waxay ku dhiirigelinayaan dhammaan daneeyaasha jubbaland oo ay ku jiraan hogaamiyaasheeda, hogaamiyaasha siyaasadeed, bulshooyinka iyo hogaamiyaasha dhaqanka inay dhisaan heshiiskii 23 abriil ayna hirgeliyaan tillaabooyinka dabagalka ayna sii wadaan wadahadalkooda waxdhiska ah. saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhoweynaya rabitaanka ay muujinayaan daneeyaasha jubbaland ee ku aadan la shaqaynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo jubbaland inay diyaar u tahay wada shaqayn buuxda oo ay la yeelato dowladda federaalka. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay wax ka qabtaan boob lagu hayo dhul ay leeyihiin dad ka shaqeeya kaawada. waryaheena Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinta inoo dhammaystiray. qaar ka mid ah odayaasha ka shaqeeya kaabooyinka ee ka howlgala dhul ku yaala deegaanka Gubadley oo maanta warbaahinta la hadlay waxa ay cabasho ka muujiyeen boob lagu hayo dhul ay sheegeen inay leeyihiin oo ku yaala deegaankaas. odayaashan ayaa ka cabanaya dhulkan oo ah goob laga qodo kaawada ay sheegeen inay jiraan shakhsiyaad ku labisan dariiska dowladda isla markaana boob ku hayo dhulkaas oo ku yaala deegaanka Gubadley ee duleedka magaalada Muqdisho. madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayay ka dalbadeen inay wax ka qabtaan shakhsiyaad ay sheegeen in ay xoog u adeegsanayaan isla markaana ku labisan dariiska dowladda. cabashaan waxaan ka nahay dad sheeganaya shaatiga dowladda iyo magaca dowladda, nin sheeganaya dhul ay ku nool yihiin intaasoo kun oo qofood dibkuura laga shido. waxaan dowladda federaalka ka codsanaynaa in ay naga soo gaarto dhibaatadaas oo ka jirta deegaanka Gubadley qaybta Buur Bishaare iyo badda u dhaxaysa. meeshaasaan ku noolnahay. waa ninka sheeganaya xooggaas waa Ismaan Xaadoole nin la yidhaa. haddii aad ka bixi weysiin waxaad ka heshiinaa saacad walba waa noo hanjabaa. qofta ugu yimaadaan intii dumar u hoos yahay u jilcan yahay ayuu wuxuu ku garaacay qorya afkoor. waxaan ka cabanaynaa dhul deegaanka Gubadley ku yaala badda afkeeda. ilaa maxaadam cadda aabay ka shaqay jiray, aniguna ilaa maxamed siyaad baraan ka shaqeeyay. ilmo ku dhalay, ilmiguna ilmo ay ku dhaleen. waxaana la soo gudboonaatay niman garoobsi la yiraahdo inkaaran inay noo yimaadiin dadka iska filla tuurshaan kaawuninka ay duugaan waa duugayna xoog ku duuginayeen aan haysto. waxaan nimankaas watan in la yiraahdo Ismaan Xaadoole oo awood muuqan ciidan noo sheegaayo dadka qoryaha ku qabaaya filla tuuraadda maalmood gabartida lagu filla tuurshay qordaba jaxa lagu qabtay dadaa ka dhacsheen. waxaan codsanayaa hana laga soo gaaro dowladda federaalka, hana soo gaarto taliyaha xoogga dalka. waa inuu naga wada ninkaas iyo gobolka loo qarsoon waa la jiraan oo magaco isqarinayo waa la jiraan. waa inuu naga wado oo naga wareejiyo. hadalka odayaashan ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmahan uu jiray muran ka taagnaa dhul ku yaala deegaanka Gubadley kuna teedsan dhanka xeebta ee magaalada Muqdisho. aad baad u mahadsan tahay Cali Cilmi Salaad. halka wararkaasi habeennimo aad kala socotaan oo idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay xilliga la qaadayo bandowga saaran dalkiisa. madaxweyne Putin ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu bandowga ku sii jiri doono ilaa 11 bisha May, isagoo oona sidoo kale u mahad celiyey dhaqaatiirta la dagaalamaysa xanuunka COVID-19. Masar Putin ayaa shacabkiisa u ballan qaaday in dowladdu ay bandowga saaran dalkaasi ay qaadi doonto 5 ilaa 11 bisha fooda inagu soo haysa ee Meeya. warbixin ka soo baxday madaxa dhinaca caafimaadka waddanka Ruushka ayaa waxa ay tilmaamayaan in 24 saac la soo dhaafay dadka uu soo ritay COVID-19 ay gaarayaan 6441 qof, halka guud ahaan tirada Ruushka uu cudurkani asiibay ay gaarayso 93558 ruux, iyada oo dadka la xanuunkani ka bogsanaya ay kor u sii kacayaan oo ay gaareen 8458 qof.
warkii habeenimood kala socoteen idaacadda kulmiye inta ayuu ku dhan yahay ciddii uu seegay waxay dib kaga heli karaan kulmiye news.net.